بسم الله الرحمن الرحيم aan wax ka barano weydiintan ah what is a credit card loan credit card loan oo sidoo kale loo yaqaano credit card debt waa deyn cayiman ama xadidan uuna bangigu u ogolaaday macmiilka inuu isticmaalo xilliga uu rabo lacagtan waxa ay ku jirtaa kaarka loo yaqaano credit card xog dheeraada oo ku saabsan credit card iyo debit card fadlan ka dhegeyso lifaaqa hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay haddaba xadka lacagtan deynta ah ee loogu shubayo macmiilka credit cardka waxa ay ku xiran tahay qiimeynta bangiga oo u sameeyo macmiilka qaabkii deyn bixintii hore lacala haddii macmiilka uu deyn hore u qaatay credit card waa lacag deyn ah oo u suurtagelinaysa macmiilka inuu ku dukaamaysan karo ama isticmaali karo xilliga uu rabo haddaba sugnaanta deyntan waxa ay noqon kartaa 3 nooc 1 deyn sugan oo leh damaanad buuxda 2 deyn qayb ay sugan tahay qaybna aanay lahayn wax damaanada halka midda saddexaad ay tahay deyn aanan sugnayn dib u bixinteeda xog dheeraada oo ku saabsan 3 nooc fadlan ka dhageyso lifaaqa hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay marka ay imaato deyn bixinta waxa ay ku xiran tahay inta uu macmiilka lacagtii deynta ahayd ka isticmaalay haddaba si uu macmiilka u helo deyn cusub ama credit cusub waxaa laga rabaa in uu bixiyo deyntii hore waana waxa loo yaqaano revolving credit xog dheeraada oo ku saabsan deynta bangiyada fadlan ka dhageyso lifaaqa hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay maadsanidiin waa inuu markale haddii rabbi idmo